بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو وناكسنا قيارتها ودينا قداوانيساي halkani waa Soomaali Weyn TV oo toddobaadkiiba mar aad ka daawataan magaalada Yataboori iyo nawaaxigeeda inta degan Yataboori iyo nawaaxigeeda waxay naga daawan karaan abna kanaal inta kale caalamkana waxay naga la socon karaan barta internetka oo ciwaankeedu yahay www.somaliweyn.com أخيارتينا دعوانا يساي برنامج آدي آد وحيسة بدن أيان إذين هينا عاوة برنامج هذا يدا سوحا ugu horeyn doona ayadaha quraanka kariimka qolkii eeba iyo waliba 10 diini ah oo inoo raaci doona بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. السلام عليكم. الدين معاملة تاسو لولا jeedo in diinta udub dhaxaadkeeda iyo tiirkeedu uu yahay habka aan la dhaqano dadka diinteena heerka ay gaarsiisan tahay iyo wanaageeda waxaan ka qeexan karnaa habka aan dadka noo dhow iyo dadka aan noo dhoweyn naga fog aan la dhaqano ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka muuminiinta wuxuu ku tilmaamay inay ruhamaa baynahum yihiin dadka isku naxariista nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhigayaa qawaacid buu dhigayaa iyo wuxuu dhigayaa shuruuc تقيحة سيدي دتك المسلمين يا مؤمنين وأسكول رقم الله تبسمك في وجه أخيك صدقة ولا لك إن وجهك أدو ولا عديسد وجهك أفرتد وصدقة ويا النبي صلى الله عليه وسلم ليه الكلمة الطيبة صدقة إريج وناكسن في عن ولا لك عاد كتر وصدقة ويا وكان إلهي سبحانه وتعالى والنبي كله لو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك هذا الأهل لهيد نبي محمد ما نتيجه قف قلفسن وأد أضرق وكاد دليل الله إن كان قوة ريرسن مركا وحويان قواعد ده صورنا وحلو ما يش الله كيانه إن لا راعه إن عندك بني آدم كا وتشيلن أفر فنو مركا نقوليه إن كبحينه ونسوق تجينه جوابها شقة تجينه إسكولة تجينه إن أنجو أنصرنه إن قف كستون أرجنه إن وتشيلن أفرنه inaan erey wanaagsan aan ku nadhaano South Africaanku waxay leeyihiin oraah la yiraahdo ubuntu macnaheedu waxa weeyaan si aan bini aadamnimadayda u dareemo waanad aduguna bini aadamnimo ay tustaa taasoo macnaheedu tahay in waxa weeyaan dadku haday bini aadamnimo isku la dhaqmaan in adduunku dhan uu noqon lahaa meel wanaagsan waxa laga sheekeeyaa Abu Yazid al-Bustani nin la oran jiray ayaa wuxuu ku jiray xamaamaat al-aama meelahan la yiraahdo musqulahan lagu qubeysto ama lagu meedho ee banaanada ku yaala suuqyada ku yaala dharkiisi ayuu gudaar suray isagoo markaa ku jira suurigii baa nin tuuga yimiyo dharkiisi baa intuu qaaday ayuu la cararay Abu Yazid al-Bustani mara meesha taalay intuu gashaday ayuu ka daba cararay ninkii tuuga sidii la isku eriyay suuqa ayaa markii dambe Abu Yazid al-Bustani ninkii uu gaaro وقبته مركز سؤالي بكوري وحكوري ولا الكيو همودين إن عن كاسو الدبائرين يمان تردن إن عن كقبته كعقابه أما عن وحكها قاته لكن وحن كوريني وحن كبقني ما أنت يوم القيامة نركير أنا معناها بدن كفردين إن لو قرأ دمبي وما أنت قيامة ما شاء الله هو سيردكته وحن ربا ولا إن تكون قايتد iyagoo xalaal ah adigan ku siiyay qof bini aadam ayaa wuxuu kula dhaqmay fal xun adigina waxaad ugu bedeshay fal wanaagsan
message baad gaarsiisay qofkaas bani aadamka ah sidiisa ma ahaanayo isbedel baa qalbigiisa ku dhacaya waxa laga sheekay Cabdulmalik ibn Marwan ninkii khaliifadii Amawiga ahaa in maalin kamid ah isagoo cunto u fadhiya nin kamid ah shaqaalihiisii khaadim waxa qolo barigii hore dadkii yani adoomada ahaa ee la haysan jiray in isagoo markaa maraq sida maraqii qayb ay kaga daateen dharkii khaliifada u xanaaqay markaasa ninkan khaadimka ah markuu arkay xanaaqii ninkii boqorka ahaa ayaa wuxuu xasuusiyay sifooyinka qofka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku tilmaamay qofka mu'minka ah ee muslimka ah markaasa wuxuu ku yiri boqorow wal kaadimiina al-ghayba kuwa xanaaqooda كنترولا مركزها وحوري كظمت غيبي حناقيقي وان آمسي وان كنترولي مركزه الراعي والعافين عن الناس هي دتك عافية مركزه وحكوري عفوت عنك وانك عافية مركزه والله يحب المحسنين إلهي سبحانه وتعالى وحج عليها دتك محسنين دتك إحسانك أوقبته دتك كلا مركزه كوري اذهب فأنت حر لوجه الله أرد سكبح حر باتها لوجه الله ما أنت كذب الضون متى هذا حر باتها تذكر بن آدمك حمان هذين وصل ميان وأنا سفي عن ورد قلنا تذكر بن آدمك أنا لا شقية سكولا أنا لا دكتة قريه أنا لا تشوفلت وإنان كل ورد قلنا سيد وخبون سيد النبي صلى الله عليه وسلم كوقاحن سنة ديسة يا حديث تاس يا آياتها القرآن كوقاحن إن ورد قلنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله nagu anfaco ayadaha quraanka kariimka iyo waliba cashirkii diiniga ahaa ee ka dambeeyay intaasi aan uga gudubno haatanna daawadayaasha aynu jecelnahay waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caruurta oo la magac baxay xanaanada Emma السلام عليكم magacaygu waa Abdi waxaan aqrinayaa maanta insha Allah taala buugaas oo la magac baxay xanaanada Emma Hej, jag heter Abdi. Jag ska läsa en bok som heter Emmas dagis på somaliska. Xanaanada Emma. Markii Emma ay muddo maalmo ah tagtay xanaanada, waxaa sii badanaya xiisaha ay u qabto, waxayna rabtaa inay xanaanadan tagto maalin walba. Niila ayaa subaxii ugu soo horeysa Emma xanaanada. Samiira dariishada ama daaqada ayay istaagtaa oo ay ku sugtaa Emma. Emma hadda waa ay kala baratay caruurtii. Amiir yare waa wiil aad u wanaagsan. Isaga iyo Samiira iyo Emma ayaa gacanta u haadinaya markay baxaysay Emma hooyadeed. Kamaal iyo Zahra caruurta ayay u maadeeyaan oo ay ka qosliyaan. Maanta wajiga ayay midab marsadeen. Layla ayaa u kaftan ama foorjo badan xanaanada. Badanaa waxay dhibtaa walaalkeeda weyn ee Saalim. Saalimse inta badan ma daneeyo markay Layla dhibayso. Laakiin marmar ayuu aad ugu caroodaa markaasna wuu tuuraa ama riixaa. Saalim wuxuu ka helaa Saamiya caruusadeeda ama boonbaladeeda ayay maalin walba u soo qaadataa xanaanada. Saamiya iyo Saalim badanaa waxay ciyaaraan hooyo iyo aabbo iyo ilmo. Inta badan Emma waxay la ciyaartaa Samiira, laakiin marmar ayay jeclaataa inay la ciyaarto caruurta kale. Markaas Samiira ayaa ka xumaata. Marka Samiira iyana rabto inay ilmo kale la ciyaartana waxaa ka xumaata Emma. Maanta Emma iyo Samiira aad ayay u kala caroodeen oo waa ay murmeen ama doodeen. Laakiin in xanaanada muddo badan lagu kala caraysnaadaa waa ay adag tahay, sababtoo ah waxyaabo badan ayaa intaa ka dhacaya xanaanada. In cunto lagu cuno xanaanada waa farxad. Hagaajinta miiska
cuntada iyo dhigdhigista cuntada caruurtu waa ku maalintamaan ama intaasi aan uga gudubno barnaamijkii maaweelada caruurta daawadayaasha aynu jecelnahay oo halka aad weli inagala socotaan waa TV-ga Soomaali weyn oo aad ka daawataan magaalada Yatapori iyo nawaaxigeeda markan waxaad ku soo dhawaataan hees la magac baxday Qayladaan labo waa codadkii kooxda Qayladaan ee ka dhisan wadanka UK waa mirihii qabsato iyo waliba laxankii Xuseen Shira Jaamac ciyaar jecel شيء قرابها قبلوا شقياها قلبي سمريها ربيو ربيو نقدروا ربيو قرن دنيا با ودو كغوياها شيء قرابها قبلوا شقياها قلبي سمريها ربيو ربيو نقدروا ربيو إساس عندما نين دينو سميحا ربيو نقدروا كرادين رافسي كل كلنا هؤلاء إساس عندما نين دينو سميحا ربيو نقدروا على دين داسي كل كلنا هؤلاء وحوتين تاقي قلت بيسموهن قرومين وذا مرين أبوره لسوهن إنتانين وذا قلن وين يسكبنا وحوتين تاقي قلت بيسموهن قرومين وذا مرين أبوره لسوهن إنتانين وذا قلن وين يسكبنا وحديتي ما قبا انت اي اسقريان تكبرت الضيان تسوي يا ابني نبطي قصيان تقضي شي ضيان وحديتي ما قبا انت اي اسقريان تكبرت الضيان تسوي يا ابني نبطي قصيان تقضي شي ضيان
rabbiyo inaga qabo qurankana ma ibaran waa qolo dilowde rabbiyo inaga qabo maqaamiyaashiyo ciidamada qalanko maqaamiyaashiyo ciidamada qaranko mar haddii aad qabataan sida qoryaha ushida maqaamiyaashiyo ciidamada qalanko maqaamiyaashiyo ciidamada qaranko mar haddii aad qabataan sida qoryaha ushida gumaysiga qarsoomba qalbigii ka xadayo qarash baa hagaaye soomaalay u qalab qaata oo qudhagooya bahlada qortagooya gumaysiga qarsoomba qalbigii ka xadayo qarash baa hagaaye soomaalay u qalab qaata oo qortagooya bahlada qortagooya bahlada qortagooya bahlada qortagooya bahlada qortagooya intaasi aynu ku dhaafno heestii qayladhaan labo iyo weliba kooxdii qayladhaan haatanna daawadayaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii falaqaynta toddobaadka iyo goobdoon caweysi wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba halkani waa tv-ga Soomaali Weyn oo aad ka daawanaysaan kanaalka Obna Kanaal iyo qofkii uu sheegay oo markaasi aan joogin dalka Sweden gaar ahaan magaalada Gothenburg oo uu ku daawan karo www.somaliweyn.com website-ka uu leeyahay tv-ga caawa barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka waxaan ku soo qaadan doonaa qodob aad u xiiso badan qodobkaasi oo ah doebedmo magaalada Gothenburg oo ama dalka Sweden magaaladiisa labaad ee Göteborg oo Soomaali fara badan ay ku nooshahay oo lagu qiyaaso in ka badan 10,000 haddaba dadkaasi markii la yiraahdo dhinaca mihnada ganacsiga waa ay ku yar yihiin oo ganacsigooda waa ganacsi kooban haddii la eego dhinaca shaqadana waa tiro aad u yar maxaa haddaba arrimahaasi kalifay waxaa haddaba barnaamijkeena noogu marti ah runtii aqoonyahano Soomaaliyeed oo muddo fara badan deganaa dalka Sweden magaalada Göteborg oo aan leenahay wax badan ayaa laga faa'iidi karaa waxaad u jeedaan markaan geeskayga fadhiya Cabdicasiis Xuseen Xirsi Cabdicasiis waxa uu ka shaqeeyaa laanta shaqada ee dalka Sweden gaar ahaan magaalada Göteborg Cabdicasiis waa jaamici dalkeena Soomaaliya wax ku soo bartay waxaanu soo bartay qaybta beeraha waxa kale oo geeska kale aad arkaysaan isla Cabdicasiis Yaasiin Geeraare oo markaasi isaga ka shaqeeya laanta hay'adda IMO oo markaasi markii la soo gaabo ah International Immigration Organization ee dalka Sweden gaar ahaan wuxuu qaabilsan yahay arrimaha East Africa haddaba laba Cabdicasiis ku soo dhawaada TV-gana caalamiga ah Soomaali Weyn runtii si gaar ah ku soo dhaweynaa barnaamijkan oo aan ugu talagalnay qaybta ganacsiga maxay Soomaalida degan magaalada wada ogtihiin magaalada aad u fara badan waay maxay horumar ugu sameey waayeen dhinaca ganacsigaas leedahay Cabdicasiis بسم الله الرحمن الرحيم horta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan caawa marti u ahay TV-ga Soomaali Weyn muddo dheer la sugayay hadduu hadda soo noqdayna ma sha Allah aad bay u fiican tahay haddii aan su'aashaad u soo noqdo walaal waxa weeye arinta tan maxay Soomaalida uga midaaho waxa weeye waa wax runtii aad iyo aad u badan mid waxaan dhihi karaa waxa weeye dadka Soomaalida ay ku xiran tahay mid labaadna dawladda tan aan la noolnahay oo Swedishka ah iyo hay'adaheeda qaabilsan maxalli jiray muxuu ahaa inay dadka u fududeeyaan
maxaa la jiray ganacsiga oo macnaha sidii la rabay aan u wada shaqaynin taas waa noqon kartaa marka haddii la yidhaho qodobkaas waxa weeye dib ayaanu maxay ahayd ka faahfaahin doonaa haddii la yidhaho cabdicasiis yaasiin geerare waan ogahay dabcan wax badan oo ka warqaba magaaladan iyo Tabori muddo fara badan oo ka badan 20 sano ayaa degan tahay wax badan runtii oo ama ha noqoto ganacsiga ha noqoto ama dhinaca shaqada ha noqotona wax badan ayaa runtii ka ogtahay maxaa marka sababay Soomaalida inay dhinaca shaqada ama dhinaca ganacsiga ay aad u yar yihiin بسم الله وما هتصنتهاي سؤال آد مهم وهواية مركو أقوه الرأي وحن سلامي يا تيفيغا سومالي وين وأن آد أقوم هاد عليني برنامج كان مهم كاي برنامج كذي كوري وسوقاتي سببتو ملها وحلا يابو أو تيفيغو مانتا برنامج كالله سوقاتي وحن أركا إني براروجينتهاي لكن سومالي دو وادد أولا شيء ganacsiga ay yaqaaneen meeshani ma yaalo wadankani waxa yaalo waxyaabo badan oo qofka ganacsiga looga baahan yahay inuu buuxiyo taasoo noqotay mid aqoon u baahan aqoontaasi oo aan ahayn Soomaalidii maadaama ay dadkii ugu badnaa hadda imaadeen aan ahayn aqoon ay u bisil yihiin laakiin waxaan rajeynayaa mudooyinka soo socda in la arki doono tirada Soomaalida ay soo badanaysa xagga bicmushtarka xagga shaqada iyo dhinaca walba sida aan u ognahay Soomaalidu waa dad wadankan ku cusub 10 sano ugu dambeeyay ay si aad ah ugu soo bateen waxa muhiim ah inaan baraarujino oo u sheegno waxa ay xaq u leeyihiin iyo waxa aysan xaq u lahayn sida ugu fududna aan u raadino ay businesska ku soo dhaxgali lahaayeen waxay ila tahay dadkeenii hore u joogay inaan ka gaabinay in aan wax u qabanno dadkeenii cusbay hadda yimid waa maasanta dabcan laba cabdicasiis markii aanu dib ugu noqono ama ha noqoto Kenya magaalada Nairobi ama ha noqoto London dalka UK ama ha noqoto magaalada hadda tan 2 saacad noo jirto Oslo ha noqoto ama ha noqoto Minneapolis iyo Mareykanka ha noqoto dabcan waxaad aragtaa in dhammaantood Soomaalida meesha joogta tirada ugu badan ama aan dhihi karo waa number 1 ama number 2 xaggana ganacsiga inay ka yihiin markii aan ku soo koobin runtii magaalada Tabori dabcan magaalooyin fara badan ayaa jira dalka Sweden gaar ahaan magaalada caasimadda Stockholm oo kale Malmö oo kale Soomaalida kama dhex muuqdaan marka waxa la dhihi karaa systemka dalkan ayay la qabsan waxaad ogtihiin runtii dalka markii dalkan tirooyinka ugu badan ku jira Ciraaq oo kale ama dalka lamid oo kale runtii ganacsiga dhinacooda aad ay u wanaagsan yihiin laakiin anagu waxaan nahay dadkii laga adeeganayay oo lacagtii waday lacagtii geenayay laakiin iyagana waxay noqdeen dadkii lacagta qaadanay soo marka ma wanaagsana maadaama runtii waxyaabaha isticmaalayno annaga aan noqono dadkii wax qaadanay oo runtii aan ku xisaabtamo xagga lacagta marka dhaqaalaha marka liyaado walaal hadii aan su'aashaas dib ugu soo noqdo waxa weeye sababta keentay dadka Soomaalida ah inaysan sidii la rabay bacmushtar uga muuqan waxa keenay waxaan dhihi karaa qayb waxa ka ah maxay ahayd hay'adaha dawladda aynu la joogno oo macnaha sharciyada wadankan u degsan ayaa waxay yihiin sharciyo aad iyo aad u adag runtii adkaantana waxa wax kale ma ahan waxa weeye luqadda ay ku qoran yihiin oo dadka Soomaalida badidooda ay fahmeen koow iyo maxaa la jiray waxa kale oo keeni karo oo aan dhihi karaa maxay waxa keenay in dadkii ay shuruucdii markay ku adkaato markuu qofka damco in uu samaysto business wadanka kan waxa weeye wax la yiraahdo bureaucracy ka jirto oo waxa weeye 20 shirkadood ama 20 hay'adood baa warqadaadi u tagaysa marka waqti dheer bay qaadanaysaa hadii aan soo qaadano marka dawladaha reer Yurub hadii aan soo qaadano Soomaalida meel badan hadda ugu haajireen ugu badan tahay waxa weeye Ingiriiska way ka fududahay in aad maanta samaysatid shirkad markii loo fiirsho wadanka Sweden sababtan waxa kale ma keenin waxa weeye luqadii oo dadka Soomaalida u fudud marka ay joogaan Ingiriiska iyo meesha tan oo luqadii ay ku adag tahay iyo shuruucda sidaan hore kugu sheegay ganacsiga oo adag meesha tan marka loo fiirsho Ingiriiskan ay ka fududahay hadii aan soo qaato hal tusaale qofka Ingiriiska marka uu sameynayo shirkad gaar u ah
dowladda waxay siinaysaa maxay awood qofkaas uusan ku bixinin sanadka ugu horeeyo haddii lacagta soo galayso ay ka yar tahay sanadkaas 70,000 oo pound oo u dhiganto 700,000 oo kun oo koron taasa marka waxay keenaysaa meeshaas ka farqiga u dhaxeeya maaragtay Ingiriiska iyo Sweden ya tan kale oo labaad aan isdhihi karo waxa dadka xanibay waxa weeye meeshii aan ku ganacsan lahayd naftirkeeda ma helayba meeshtan problemka ugu weyn oo ka jiro taas waxa weeye iyo macnaha qiimaha aad ku ijaarinaysa localka oo ah waxa weeye wax uusan qofka bini'aadanka iska bixi karin maaragtay qofka shakhsiga iska bixi karin haddii aad fiirisid waxa weeye helitaankii adag iyo qiimihiisu aad iyo aad u kacsan macnaha oo wuxuu qofkii maadaama uu rabo isaga inuu noolaado isla markaasna maxaa la jiray isagana ka noolaado dadna uu ka shaqaalaysiiyo marka labadiiba uma suurtoobaysa macnaha taas waxay keeni kartaa marka dhibaatadaas jirto cabdicasiis garare isla su'aashaas iyada ah insha Allah taala su-aashaasi horta waa su-aal muhiim ah wax badanna sida uu cabdicasiis u sheegay way yihiin kala gadisnaanta wadamada aan ku noolnahay waxay keenayaan waxyaabo badan oo aan Sweden ka fududeen wadanka Sweden dhaqan waxa uu ah in ay dad qunyar socda yihiin taxadar badan aan ku degdegin in ay businesska qofka dhaqso u furaan iyagoo ka cabsanaya qofkaasi in uu galo damage dhaqaalaha dhinaciisa ku saabsan sida aan u ognahay wadankan naftirkooda su'aashaas hadda aan isweydiinayno muddooyinkanba iyaga isweydiinayay sida aad horey u maqasheen waxaa jirta wax la yiraahdo basoor oo ay suubiyeen xataa in ay u tagaan dadkii Mareykanka deganaa ee Soomaaliyeed ee businesska ku haystay kuwii Ingiriiska deganaa iyagoo ka soo baaritaan ku suubiyay sababta keentay in ay Sweden Soomaalidu business aysan ugu haysan oo ugu haysato meesha la yiraahdo Ingiriiska iyo Mareykanka iyo wadamada kale waxa uu cadaatay Sweden inay tahay meel xirxiran iyadu inay tahay meel xirxiran markaad u fiirsato 9 milyan oo qof ay Swedish ku yihiin markii laga saaro dadka ajnabiga 9 milyan ee Swedishka ah 2 milyan wax ka yar ayaa business haysta dabaqadii way jirtaa ah dadka businesska ah iyo dadka aan businesska ahayn laakiin waxyaabahaas oo dhan waxa keenaya waxay tahay dadkani waa dad bartay inay qunyar socdaan annagu businesska waxaan u naqaanay inuu qofku daaqad furan karo waxa uu rabo iibin karo isagoona canshuur bixin wadankanna waxa weeye 100 shilin uu qofka bixiyo wuxuu bixinayaa 34 karoon oo canshuur ah waxa uu bixinayaa qofka u shaqeeya ayuu ka bixinayaa canshuur u gooni ah oo la yiraahdo arbetsgivaravgift ama fee of the employment in English waxa lagu yiraahdo ayuu ka bixinayaa taasi waxa si dheer qofkii wuxuu bixinayaa korontadii guriga kiradii guriga biilashii oo dhan markii uu qofkii suubiyo budgetkiisii ama preposition of budgetkii ma ka bixi karaan ma haystaa dhaqaale horta ku filan kostanadka ama waxa la yiraahdo capitalka qofka uu haysto iyo waxa uu helayo misl egyihiin marka qofkii markii uu ku diyaar garoobay inuu business furto oo la soo weydiiyo su'aalaha ku saabsan adiga wixii aad haysatid oo aad ku businesska ku furanaysid bal horta la imow ideyadaadii oo qoran budgetkaagii oo qoran ama economic issue-gii oo qoran la imow markii la yiraahdo qofkii way ku adkaanaysaa cabsi badanna waa gelaysaa markii loo sharaxana waaba ka sii daraya oo ka fogaanaya laakiin anigu waxaan qabaa inaysan dadka Soomaaliyeed ka cararin kana baqin businesska sida diinta islaamku qabto qofku markii uu beec mushtarka galo ama uu beec mushtaro waxa weeye wuxuu u dhaxeeyaa faa'iido iyo khasaaro laakiin diinta islaamku waxa ay qabtaa inuu karaamaysan yahay oo businesskaasi hadduu business xalaal yahay uu ku karaamoobayo waxaana kaloo qabaa annagoo islaamka dhinaciisa u soo leexanayna dad islaam ayaan nahay meesha aan imaanno waxay ku fiican tahay in aan ka fakarin inaan dhaqso milyaneerdiye u noqonno oo lacag u helno taasoo ah xaaraan badan inayna soo gelayso annagoo ka fogaanayna xaaraanta si aan tartiibta ay u socdaan annagana ola ambaqaadno aqoonta inaan badinno haddii ay bataan qofku aqoontiisu waxaa yaraanaysa cabsidiisa waxaad moodaa in aan aad ugu dadaalayno inaan dhaqso u helno shaqo dhaqso inaan u helno business iyo beecmushar inaan suubinno dhaqso inaan dadkii uga hormarno laakiin degdega badani wuxuu leeyahay khasaaro badan wadankan dadkiisu aan ku noolnahay markaan
dib ugu soo noqonno waxaa aad looga ilaaliyaa waxyaabaha degdega badani 10kii sane hadda ugu dambayso generationada badan qaxootiga adduunka soo furtay meelo walba la isaga yimid waxaa bilowday in degdegii ama bacmushtarkii uu kor u kacay wadankan boqolkiiba uu noqday 25 meeshii uu ahaa boqolkiiba 12 boqolkiiba 25kaasi bacmushtariinta ahi waxaa u badan yihiin dadka ajnabiga ah ee wadamada kale ka yimid oo iyagoo dhaqaale haysta la imaaday waxyaabo badan oo waxaa jirta aan Soomaalida loo qiimeyn ama loo fiirin qofka Soomaaliga qaba wuxuu ka bilaabay shilinkii qaxootiga marka su'aashaas anagoo sii wadi doona macnaha waxaan ula jeedaa in dadka Soomaalida ah aysan ku degdegin dhaqso inay milyaneerdi u noqdaan lana tartamin qof wadankiisii dhaqaale kala yimid laakiin ay isku tagaan iyagoo group ah Soomaali ah fikradaha iyagoo isdhaafsada iyagoo oo arrimahooda ka fakara markii aad isugu tagtaan group oo ku wada shaqaysanaysaan waa iyadoo markaas aad yaraysaan suuqii shaqo la'aanta waxaad saaidiseen suuqii wax soo saarka waxyaabo badan oo faa'iido ah ayaa ka soo baxaysa laakiin waxaan moodaa Soomaalidu iyada inay kala baqayso oo ay cabsi kala qabto waxaan oran lahaa cabsida dhexdiina ka saara meesha aan joogno waa North Pole waxaan ka nimid Afrika waxaan u soo gudubnay 200,000 oo kiiloomitir ayaan wadankeena ka soo tagnay annaga ayaa isku kalara annaga ayaa isku diina annaga ayaa isku afa annaga ayaa isxigna oo isku wadan ka nimid marka annaga aan is aamino ilaahna aan aamino cabdicasiis runtii aad iyo aad mahadsan tahay runtii su'aasha ugu dambayso oo aan raba labadiina inaan weydiiyo waliba cabdicasiis garare adiga aad ka dhawaajisay dhinaca aqoonta markaan soo qaado dadyooga kale oo ajnabiga ah oo dalkan nala degan oo lamid ah sidaan u degannaha u degan markii qofka uu ka soo baxo dalkiisa waxa uu leeyahay ujeedo waxa uu soo bartay xirfadaas ayuu doonaya inuu ku shaqaysto oo wax ku meel maro haddaba midda aqoonta ka dhawaajisay waxaad moodaa marka annagu markaan dalka Sweden inta badan Soomaalida imaanayeen inaysan xirfad ay ku shaqaystaan aysan soo samaysan marka taas soo lama dhihi karo dhibaato ayay ku tahay maxaase dhalinyarada cusub oo hadda soo galay Sweden soo galay maxaad ku waaninaysaan xagga xirfadda walaalle waxa weeye qofka bini'aadanka ah haddii uu rabo ama inuu shaqaysto ama inuu xitaa samaysto maaragtay wax u gooni ah oo bacmushtari u gooni ah aqoon waa muhiim waay wax kasta oo laga shaqeynaya aqoon bay u baahan tahay marka aqoon lahaa Soomaalida wadanka markay yimaadaan ama dadka hore u joogay inuu qofka balaan samaysto barnaamij samaysto waxa weeye informationkii maanta waa sahlan yahay gurigaagu kugu imaanaya internetkii buu ku jiraa hay'adihii baa tegi kartaa macnaha meel kasto aad rabtid maaragtay maanta information u baahan waa heli kartaa ma garat marka taasa waxay u fududeynaysaa Soomaalida badidooda in ay waxay u baahan helaan laakiin aniga waxa muhiim aniga aan u arkaa inay tahay qofka inuu aqoon leeyahay haddaad aqoon lahayn shaqana ma heli kartid maxay ahayd meelna shirkadna ma samaysan kartid wax kasta aqoonta ku xiranta maaragtay qodob aan isleeyahay waa muhiim oo ah haddii qofku uu samaysanayo shirkad muhiim ah waxa weeye waa inuu qofku haystaa dhaqaale waa inuu haystaa dhaqaalahaas sida lagu kasban karo waa laba nooc mid qofku waa inuu marka hore isaga dhaqaale u aruursaday oo si kale ku kasbaday shaqo kasbaday ama si kale ku kasbaday wuu ka samaysan karaa badi dadku waxa weeye waxay aadaan bangiyada Soomaalida dib weyn baa ka haysto oo waxa weeye haddii xitaa qofkii uu shuruudii bangiga buuxiyo waxa weeye midda hortaagan ugu weyn waxa weeye bangiyada tan waxay ku shaqeeyaan nidaamkan maxaa la jiray muxuu ahaa interestiga ama ribada aan dhahno taasna waxay keentay Soomaali badan in ay ku dhiiran waayaan inay inta bangi tagaan lacag ka soo qaataan haddaad fiirisid qaybta dadka Ingiriiska ku nool dhaqma sida nidaamka islaamiga ah oo macnaha oo siiyo dadka maxay ahayd iyo lacag deyn ah oon riba lahayn taas marka waxay keeni kartaa maaragtay dhibaato ayadana ku aan qaba aniga maaragtay inuu bacmushtarigeen hore u socon waayo maaragtay cabdicasiis gaar insha Allah waa sidoo cabdicasiis u sheegay horta aqoon Soomaalidu waxay ku mahmahdaa aqoon la'aan waa iftiin la'aan oo mahmaah jirta waa taariikh aan ku soo heesi jirnay waxaan oran jirnaa aqoon la'aan waa iftiin la'aan waa aqal iyo ilays la'aan waa wax sax ah qofka haduusan aqoon lahayn indha ma laha
markii aan u soo noqdo su'aasha ah Soomaalidu markay wadanka ka imaanayeen wax qorshe ah ma lahayn runtii waqtiyada dambe wixii hore waqtiyada dambe Soomaalidu waxay u soo cararayeen qof walba inuu survive gareeyo inuu ka soo tago wadankii oo shidooyin iyo dhibaatooyin iyo dagaalo sokeeye ka socdeen plan A kaliya wateen B ma lahayn dadkii ugu soo horeeyo annaga aan ka mid ahayn plan A iyo B midna maana wadan kaliya plankeena wuxuu ahaa inaan ka soo baxno Soomaaliya diyaarad soo raacno nala yiraahdo qurbiyi bay tagan laakiin halkan markaan imaanay waxaad moodaa ilaahay nooguma darnaan kuma aanan qasaarin waxaa moodaa Soomaalidu inay yihiin dad aad isku urursada dad aad isugu dhow Swedish waxay nagu tilmaamaan shinnida oo kale eating pool ay yiraahdaan dad macnaha iyaga kaliya wada socdo iyaga kaliya wax isku darsadaan nahay meel kasta ay joogaan waa sidaas laakiin anigu waxaan kula talin lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed marka ugu horeysa xataa wax kala baranin luqadda wadanka baro dadka aan la nooshahay waxa aad ku wada hadlaysaan misunderstanding inuusan idin dhexmarin in aysan dhibaato idin dhexmarin haddaad taas ka gudubtaan waxa u gudbi kartaa inaad shaqo ku raadsato inaad bacmushar ku subsato in aad waxbarasho ku sii wadato marka waxaan dadku kula talin lahaa marka aad timaado waxba dhaqaalaha ku fakarin waxbaro aad iyo aad mahadsantihiin laba cabdicasiis xuseen xirsi iyo cabdicasiis yaasiin garare oo ka mid ah aqoon-yahanada magaaladan Göteborg degan oo runtii magac iyo maamuus ku leh barnaamijkeena wuxuu ahaa barnaamij aan ugu talagalnay falaqeynta toddobaadka oo aan markaasi toddobaad kasta aan qodob xiiso leh oo aan markaasi leenahay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Sweden gaar ahaan magaalada Göteborg aad iyo aad ay u xiisanayaan toddobaadkan wuxuu ku saabsanaa arrimaha dhaqaalaha insha Allah taala waxaan diyaar doonaa barnaamij kale oo ka duwan oo aan leenahay markaasi waxtar ayuu u leeyahay dhalinyarada iyo waalidiinta degan gobolkan barnaamijkan waxaa aad uga qayb qaatay oo soo diyaariyay inta badan dhinaca farsamadana runtii aad uga kaabayay Xuseen Cabdi Calasow waa tahay halka aad weli naga daawanaysaan waa TV-ga Soomaali Weyn daawadayaasha aynu jecelnahayo haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii maaweelada Soomaali Weyn barnaamijkeena maaweelada Soomaali Weyn caawa waxa ugu horeyn doona heesta isbuuca oo isbuucan idin soo deyn doono heesta dhunkasho ay ku luqayaan Farxiyo Kabayare iyo wiliba Dalmar Yare waxa ku xigi doona farshaxankii Amiin Caamir sidoo kale waxa daawan doontaan Ododore waa Babadore
دينكا مركن دنكدا باي حد ويدقاقدا يدبنا حاجة دينكا مركن دنكدا باي حد ويدقاقدا فهايو ديكاد كسغدو دحي الله فهايو ديكاد كسغدو دحي الله فهايو ديكاد كسغدو دحي الله فهايو ديكاد كسغدو كقوسي عشق من كيرا وكل يا هي أنا من روحي أنا هي غديرة جعيل دبيو دلدل معاه دوني قل عنيو دفن كقوسي هذا بيري يدبنا حاجة دينكا مركن دنكدا باي حد ويدقاقدا أيه نفتيرو مرحب بالعقيسو داغن كي صراحة باي حد ويدقاقدا علقن هذا بيري يدبنا حاجة دينكا مركن دنكدا باي حد ويدقاقدا علقن هذا بيري يدبنا حاجة دينكا مركن دنكدا باي حد ويدقاقدا
dhoorre waa aba odo dhoorre sheekada maanta waxay ku saabsan tahay odo dhoorre oo tabliiq noqday waxaa ii soo dhiibay saaxiibkay injineer taariq cabdiwahaab sheekh cabdiraxmaan oo ku magac dheer kuukay alfaraj kuukay wuxuu ku nool yahay Switzerland waa ninkaas aasay beejka loo yaqaano cawayska oo ciyaalka xaafadda ku baashaalaan beejkaas waa tuulo ka mid ah Facebook aba xaggaas laga baashaalaa kuukay sheekadiisa waa tane saaxiibka odo dhoorre tabliiqoo noqonaano جماعة سدح مان سفر آديس أو كل قدر سنة با مركي سؤال أبتان أو شيء الشورين أو شيء جماعة دوت ليش شيء محاربان يا حافظ ما نو واحد ينو هذا أي قال نيو هو مفهم يعني حتى أنا بفهم وين ما أدري مت أمر الله بروح بيزاني وفهم كمان يقدر نو يا كل شوي مدح دقيق يا أنا ما أفكر أفهم يا مرام إلا الشيقة عيالك حافظ إكس ورا صاحبك ما أقرأ هذا أحلى دويس كويس كده أنا قاعد أكون هذا سرعان كانوا لي صباح بقى جك وصباح ترى سوى سرعان وحي إبانة صاحب عيالك حافظ ودل غاية لباش عليه صاحب ترى جيت هوسيس ساعد كونفورس دي ساعة والله رسول بودا حلو ورا غير وأيدين سلام الشيخ تاني يجي جنبك تقلع السلام عليكم بدنيو هذه بقى زهار يوم واي السلام عليكم يا أخ سلامكم مقتاي أيضا الله يجعلنا يا وأفهمتوا لما يهو وحان أذيك يديبت وحان ربا إن أرد مهم إذا كلام ورطا الحمد لله الناس سيجار عب جات نقوم مجرو وأفهمتوا لكن يهو جردينك لحب حوانه صاحبه جردينك حرام واي قرط واي دينته ما أقول نبي وكديري وأفهمتوا مركب ما هو خياري جردينك صاحبه جالب بنده ولا بلا يا حافظ أسكول حياة أنا ما أعرف وشيخ نقصه قامي وحلا جردين قبعة أنا قاعد نقبتي عادي نقبض يعني أنا لا هذا وصلنا دول قاعد يسوي بودارو مركز له صاحب كله تمام وأنا كفهم أبا بدل لكم حرب هالسؤال إن أجي جهل بيش أيوه ده ودي أبا صاحب قف بتشقى برنولا VIP فرتك حرنا عجيب كتاج وافهمتوا جوك دير أبا كوب ما صار موتور فيزيكس ده تاكو وريري مي أبا إسديرو يا كل شيء وافهمتوا صاحب مركي صوت الله فيها ساين كوس كالكولوس مي إسدير أبا وافهمتوا صاحب كا أضرر وبحيا كله أبو كلها حدا استخدم بجرع كذا قفتي هرتس الكلام صاحب قالن جداس أول صوكو كوسي عندهم أنت لو سوقري أيضا بريجا كوسوقش برتا ميا أبا برتا ما أقول فري ما جاي أبا أنا مقول تاس مقدرين أبا جردين كواي وأنا تكان ديدنا وبعدين وحواي فردوس يطعموا قليل طلع الثمار أصبح حرام وقواس لكن تقنيه وحملها خيلو قرص عيبها قلت له شيء درقة هذيك كيف هذيك بحور يا هذيك هذيك ما نحط محل وقت ما هذيك والشيء محل هذا العمل حاسب صاحبك كيسوس كوارنا شيء قيا جاي خربها ولا هذيك نحاول والله جردينا هدك وعدين يسي أنا دلها مياد شيخوك سوجيس هذا ولا ورا أولي بو بعمل الجنة كودو نكها ناكتو كشة كينا ورتو ما مخلميها هذه كله بقى ما لا ضوله كأنه إذا وش قلده دلقا يسول بودرو دويس نكها سؤال سوا كجواب هذا الشيخ محكولة تعمل أبو الشيخ ولا صقر أبا أفصل إنه بحوار كانوا هدو يراهدو ولا عليال هدو له عيال كان حافظ ميراين wuxuu go'aansaday boosku joogay inuu ka soo degaba oo meel wax ka arkaan ka tusiyano luqad ay fahmayaan kula sheekha intuu koofida imaamada soo dejiyo ilaa sharafta inuu ciyaar ma rabe oo waxa leeyahay
waraa dilqaaya adiga bagdhi oo tawraano oo dhowre adna baaba'atay abo yaa qusus kala kala yaa ka xaftu maaye waa ka madacmo is waa isku soo dhawaanano si shakis loo dhigto markaas uu raha saaxib oo dhowre waa ku jeeda tarbuunka la ciyaarayso waraa maqrib iyo habeen jidin in la galo wax macna ma keenayso xalaal abba maana cadal qabta waa shaacina aniga oday ku dhan u taabana oday ku dhalay jooka toro way laba u goyn hal xabotoon bul ka saarano markaas adeerka u dhiibay adeerkan abtiyaasha qaraabo wax maqamala baalayaasha difaac dhaxda iyo weerarka ayadoo is haysta ba awar culus qaadano baas dheer baas gaagaaban alaabta Brazil cid waa la kuusa saaxib afka la saaray goosha lagu ururnano ana qabsanaaba odayga marwaxad waa xamaaliga dhan waa diisha dhab oo gabana saaxib oo dhiiba markaas waxa wareejis alaabta Ronaldinho dhag waxa wareejino gabadha beed oo ku daay saaxib aba dhaano gacan oo taagane dhaa oo ku soo taabana ba qabsane mid maraxo gabadha gaadgaajir tuner bulu oo ku daay kaas kale ilmo adeer ahayn gabadha isku qoray dhacfa waa ka dulqaad waa deegsanayno wax ka dambeey malaha sheekha markuu intaas marayo oo istaagano hakadu guri sheekadiis ciyaalka xaafadoo dhan iyo ododhoor afka taagman ku dhahay ilaa sheekada ku socotay ododhoor soo badhaye wat maxaa ku xiga abuu ku tuuga wat ya sheekhu wuxuu la saaxib qoftu soo ordeeno moolo ba ayuu soo afar qaaleynayso u baaxay sida adoo bidix ka siina ay boodi ba dhab u qabanayno faradur angalowle kir u dhahday maxalla sheekh faradur xaran way ittaqla sheekh hasmeen saas u dhahay hay farlaab ka war farlaab angalowda farlaabna kiraahiwa ay runtii wuxuu ka taas qad wayniyo waxyaaba kiraahid lama sameeyo maxaa sameeyay adiga waa ka soo dartay maxaa sameeyna marka aba u dhahay tartiiba oo taraara xadiib aba afaadano saas ina sameeyso waajib waa afaadano hadaa sheerayso oo shuutaysana sunno waay marka kitaabka ciyaarka xaafad loo fiiriyo saaxiibka oo dhowr waa booda ku dhaw waaw qayrina oo sheekha qoors gaar ku siirano mujiro sheekhi waxa la walaah la qatan wala sheekhi waliga Allah mark niyo sheekhaas dhan inta agal rabaa sheekha waa buu jiro qorta gajibin wala deena ba ciyaarka xaafadna soo shimumaano sheekha la bila saaxib celebrity kor allo qada ba ediga wala soo dejina because wala akhiray inta sheekano aad diinta darteena barataan markayna soo baxay waa badan mashaad ku keenaba markaas ugu dambeys waa hagaag daawadayaal intaasi aynu ku dhaafno barnaamijkii maaweelada Soomaali weyn oo aan filayo isbuucan inuu xiiso gooniya lahaay haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caafimaadka mawduucan ka hadlayo waxa weeye mawduuc bari kamana oo aad u balaaran oo dadka badan ay ka sheegtaan inkastoo sanahay wax cudur khatar ah dadka ku khatar ku ah laakiin waa cudur aad u badan oo laga helo dhalinyarada iyo caruurta u badan tahay iyo dadka waaweynba cudurkaas waxaa la yidhaahaa ectopic dermatitis ama eczema ama xajiinta cudurka loo yidhaaho marka cudurka la yidhaaho eczema maxaa tahay eczema waxaa la yidhaahaa waa cudur raaga soo noqnoqda korka cuncun iyo dhibaato xanuun ku haya maqaarkana u subiya rash ama mataqaanaa skinka ama maqaarka ka subiya meelo badan ka afactory wuxuu badan tahayna inay gaarsiiyaan meelaha jirku ka laabmo waxaa kamid a elbooyada mataqaanaa meelaha dhulmada ah lugaha hoostooda meesha mataqaanaa jilibiyada gadaashooda labada dhigood gadaasheeda mataqaanaa iskuusyada kilkilaha caloosha meeshay ka laabanto meelaha mataqaanaa ciraha ay ka laabtaan maqaarku meeshii laabto oo dhan inay ka dhacaan wejiga waa ku dhacdaa marka sidee uu cudurkan macnaha ku yahay guud ahaan sidee u jira haddaanu ka sheekayno ama ka hadalno waxaa weeye cudurkan waa mid aada u ballaaran oo laga helo wuuna sii badanaya baad moodaa sanadahan u dambeeyey waxaana la leeyahay ilaa 15% ilaa 20% caruurta iskuulka dhigata ayuu ku dhacaa waxaana waad garan kartaa caruurta dhalatay ilaa iyo caruurta iskuulka waa dad millions gaaraya marka caruurta daada ku jirta u badan
sababta aan usoo qaaday mawduuca kan waxa weeye waa very important aanu ka dhigay waxa weeye maadaama aanu nahay dhakhaatiirta magaaladan ka shaqeysa London dad badan oo dhibaatada qaba ka cabanaya ayaa noo yimaada boqolkiiba 2 ilaa 10 dadku waaweyn ku dhacaa marka waad garan kartaa in dadka boqolkiiba 80 qofka ay ku dhacdo waxay u badan yihiin carruurta ka horeysa inta 5 sano la gaarin bay cudurkan badan yihiin marka cudur balaa maaha laakiin waa cudur maqaarka yeeleeya cunuguna isxajiimoonay oo macnaha isxoqaya oo korkii mataqaanaa dhiig ka imaanaya oo dhibaato ku haya habeenkii iska seexanaynin mataqaanaa waalidku aad bay ugu dhibaato qabaan waxaana keenay oo sababaha keenay maxay yihiin waxa keeni kara bal maxay yihiin astaan isku dayna inaan ka sheekeyno waxaa la leeyahay horta lama yaqaan wax keenay wax cudurkan keenay haba yaraatee dadku wax mala awaala ma ahana wax la facts oo la hayo la leeyahay waxaana keenay ma jiraan laakiin waxaa loo malaynayaa inay ka yimaadeen genetic waxa qofka bini'aadanka jirkiisa waaridnimo horta iyo hooyada ka soo qaaday inuu parentkii la isticmaalo hooyada ama aabuhu inuu qabo maqaarka cudurkan maqaarka la yiraaho oo eczema la yiraaho inuu qabo marka cunugu hooyadii iyo aabihii kala yimid waa mid labaad waxa weeye environmentka macnaha dabeecadda ah adduunyada noolahay oo ah wax mataqaana korka wax yeelaya ama allergic ah waxaa kamid ah waxyaalaha cunahaya waxaa kamid ah saabuunaha qubayska shaambooyinka mataqaana bubble bath waxa la yiraaho showerska mataqaana jeelkan la isku dhaqayo waxyaalahan qofku ku qubaysanayo ama saabuunaha kamid yihiin waxaas waxay keenayaan marka in maqaarkii wax yeelayaan dhibid ay dhibayaan baa keenaya marka waxaa kamid ah cudurada ama bakteeriyada kamid ah staphylococcus oo korkeena ku nool korkeena haddii la yiraahdo maanta la qaado waxaa la arkayaa bakteeriya badan baa ka buuxda markay islaan taas baa keeni karta iyo hawada isbedesha macnaha weatherka isbedelaya oo barsan haddii qabow badan winterka aad markuu qabow yahay cudurkan waa kaca haddii kulushahay ayadana waxba yeeshaa laakiin badanaaba winterka dad baa mataqaan aad u xun yahay dadna samarka ku xun yahay marka hawada isbedelkeedu waa keeni kartaa kow dharka la gadashanayo wax wuulka la yiraaho ama suufka aan ahayn aan wuulka la yiraaho oo xariirta la yiraaho badanaa haddii qofka korkiisa ay ku jirto way xoqdaa korka ama waxbay yeeshaa taa darteeda keenaysa way keeni kartaa cuntada boqolkiiba 10 waxaa la leeyahay carruurta waxa keenta cunto ay cunaan dad badanaa arkaysaa waxaa cunaa kalluunka hadday cunaan hadday mataqaanaa ukunta cunaan hadday cunaan mataqaanaa cheeska hadday caanaha cabaan waa jirtaa laakiin wax fact oo la hayo ma jirto laakiin waxay jirta 10 baa dad waaridku waxay sheeganayaan cunugan haddaan cunto siin noocaasa way keenaysaa cudurkii waa ku sii dhacay iyo wax mataqaanaa qofku neefsanayo waxaa kamid ah waxa la yidhaha house mites polandka mataqaanaa waxa ka duulaya geedaha ayaa keena iyo mataqaanaa maqaarka ama digada waxaan leeyahay moldka waxa la yidhaha fungalka ah oo jirka geedaha ku beerma guryaha dhexdooda iyo mataqaanaa dunta ama maqaarka xayawaanka wax ka mid ah waxyaalahaas waxay keeni karaan xoogaa inay qofka environment ahaan ama dabeecadda waxaan ku noolnahay meelaha ku nool bisan bay dadka iyada haysta iyo mataqaanaa kaadska haysta iyo waxaasoo kale waa dhici kartaa laakiin guryaha xiran oo ku nool yihiin mataqaanaa humidka ah oo ay halkan yiraahdo moldska ama fungalka ku badan yahay waa keen waxaa kaloo saddexaad oo la malaynaya qofka korkiisa ka imaan karaan waxaa kamid ah stresska ma keenta dad waxa la isku hayo waa keenta stressku maxay tahay stress soomaalida naqaan anagu arrimaha waxa la yiraahdaa stress laakiin qofku hadduu ku mashquulo maskaxiyan qofkii mataqaan u noqdo bari busy wax ku stress ku suubiya macnaha ama dhibaha qofka haddii arko wax dhibaato la kulmo ama dhibaatada ha noqoto wax dhaqaanaansheela ama dhaqaale ha noqoto ama dhibaato xabsi ha noqoto ama xun dad baa waxay leeyihiin iyadaa keentayba sababta waxaa la arkayaa dadka badankiisa markay dhibaato haysto maqaarka wax kasoo baxayaan qolo culimaa waxay leedahay maya waxa weeye maqaarka iyo maskaxda ayaa meel ka wada abuurmay marka qofka marka maskaxda xoogaa maqaarka iyo kasoo baxayaan wixii marka fikrado kala duwan baa jira laakiin waxay u dhowdahay in wax stress ay wax yeeli karaan waxaa kamid ah hormoonada bisanbiyo waxaa kamid ah mataqaana intaysan caadada helin ama dumarku ay caadada helin marba bay kacdaa cudurkan ama waqtiga mataqaana yihiin uurka leeyihiin bay kacdaa qaarna waaba ka raystaa marka qaarkood sidee lagu ogaan karaa marka cudurkan ama sidee lagu ogaan karaa cudurkan qabaa halay baaro Soomaalidu waxay tiraahdaa halay baaro dhiiga laga qaado xagga laga subiyo maxaa ka jira sidee lagu ogaanaya horta cudurkan ceeb wuxuu ku leeyahay calaamooyin kala duwan waxaa kamid ah inuu cuno jirka inuu cuno qofku inuu isxoqayo cunugu hadduu isxoqayo badanaa cudurkan la yiraahdo eczemada ama dermatitis-ku badanaaba ma aha calaamad ma aha waxaya marka cunid qalal meelaha afagad garanaya ay tahay macnaha qofka gaarsiinayo meelaha isgoyismada meelaha mataqaana jirka laabmo ay wax gaaraan mataqaana ankleska
nagga waxaa la yidhaaho dhuunta meesha dhagaha dabadooda ah meelahaas goyska marka waxa weye cuncun iyo jirkii oo qalala waxaa kaloo jirta la soo socota ama u dhawadaha inay qofka hay fever dadka leeyahay ama asmada qaba inay taqaanaa dadkaas waxay dhow allergy baa jira immune systemkooda wax diidaya caruurta badanaaba caruurtooda walaalahooda ama adeeradooda qabaa cudurkaas iyaguna waa ku badan yahay qofkuna dry skin leeyahay maqaarka hadduu qalalo wuu keenaa waxaan idhi meelaha laga faaktiray ama waxyeelaan waxaa u badan meelaha goysyada ah caruurta yararka ah halkan wejiga iyo ka yeeshaa iyo forehead halkan intaasna iyaduna waa yeeshaa marka taasaa u badan waxa keenta badanaa carruurta waxaa ku dhacdaa intaysan gaarin 2 sano u horeysa marka haddii uusan lahayn marka cunugii cuncun uusan cunaya hameenka uusan cunaya maalinka uusan cunaya ma eczema ma taha dad waxay leeyihiin maya eczema maaha waxaan u badan tahay saanu sheegnay inay meeshaas u tahay qasab baa in qof walba marka inta kale laga helo maya waa isbedeshaa marka waxaa laga qof in laga helo gacmaha halka kan qof laga helo mataqaanaa iskoosyada qof mataqaanaa korkiisa qof basi ugu dhacdaa marka waxaa dhici karta inuu qofkaasu wejigiisa korkiisa uu iskaga jiro cunugaas korkiisa ka jiro inuu qalalan yahay badanaaba marka qaarkood marka waxaa jirkii oo qalalan iyo soconkii wuxuu keenaya xoqid badan xoqida badan waxay keenaysaa mataqaanaa wax kala ku dhashaan cunugii layman badan ka baxaan korkiisa guduuto oo mataqaanaa kululaado dhiig ka soo baxo nabaro yeeshaan soxoqo infection ku dhaco caruurta khaasatan waxay u badan tahay inta wejiga iyo kadmaasha maqaarka madaxa wejiga iyo meelaha mataqaanaa kora ah ayay kaga dhacdaa marka taas waxaan idhi waa caruurtii yaryareyd mararka qaarkood waxay ka dhacdaa meelaha mataqaanaa xafaayadda looga xiro ama dabada iyo mataqaanaa meesha ku fariista cunuga kow dadka caruurta yaryar oo xoogaa ka waaweyn kuwa yarka ah oo caruurtaan idhaahno waxay ka yar macnaha 2 sano iyo dadka waaweyn badanaa waxay ku dhacdaa meelaha laabma jirka ka laabma dadka waaweyn waxay badan tahay badanaa qalayl iyo cuncun badan bay badan tahay waxaa kaloo jira gacmaha mararka qaarkood gacmaha iyo cirbaha iyo lugaha intaba waa kaga dhacdaa qofka badanaaba marka bacteria ayaa mararka qaarkood qofka ku dhacda ama infection baa ku dhaca korkiisa waxaa lagu garan karaa kaas meeshii biyo ka imaanayaan xoqidda badanaysa mataqaanaa qolof fuulaysa meeshii dhiigyo meesha dhiig yeelatay barar ka muuqanaya cunuga aada u xanuunsanaya taas waxay keenaysaa marka in cunuga mataqaanaa dhibaato ay ku qaadato marka waxaa jira cudurro kale oo u ewaas sida cudurka la yidhaaho psoriasiska soomaalidu mataqaana psoriasis baras lama yidhahno malanaya cudurka psoriasis la yidhaaho contact dermatitis marka iyada laftirkeeda qayba leh marka qayb waxaa jirta keliya dadka gacanka ka dhacda dadka shaqaalaha u badan iyo qaar kaga dhacda meelaha qofka ka dhidido ama waxay kaloo jira cudurrada fungal infectionka sidoo kale ugu dhacdaa cudurka ilaa lichen planus ayaa jira lichen simplex chronicus asna waa ku dhacaa dadka iyo cudur haatanna waxaa la soo gaaray xilligii aan hadahayo kale hawada isku macsalaameyn jirnay daawadayaasha aynu jecelnahayo waan filayaa inaan u xiisi doontaan barnaamijyada aan idiin soo wadnay isbuucyada xiga hadduu allaha awood dari ogolaado waa farsamadii iyo weliba kaamiradii xuseen cabdi calasow inta aan dib dambe u kulmi doono isbuuca xiga sidaas iyo nabadgelyo dalkaygo